يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان وادعوا إلى التوحيد في كل الملا وكذاك دوما سائر الأزمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. xaalad nafsiga inay ku timi waxa weeye ma ogid in waxa weeye ardayda quraanka la jeclaysiiyo macallinku ardayda cilmiga inuu jeclaysiiyo waxbarashada inuu jeclaysiiyo ma aha inuu ka didiyo dad badan oo saaqidaya marka la dabagalo waxa la ogaanayaa waxa weeye macallinkii wax u dhigay quraanka u bilaabay inuu diinka waxa weeye necbaysiiyay sida uu dhangadaynayo iyo sida uu ugu dilayo waalidka lamida khayrka markaad ku dilayso ubadkaaga waxa weeye aad u digtoonow. وادعوا إلى الغراء سنة أحمد ذاك النبي المصطفى العدنان وادعوا إلى نهج الهداة فإنهم نور يدل التائه الحيران وحذار داء الافتراق فإنه داء البلاء وحالق الأديان فالوقت وقت الصبر يا قومي وقد حامت عليكم زمرة البهتان صوفيهم جهميهم شيعيهم قوميهم وكذلك العلماني وأضرهم للدين ليبرالية جاءت بكل الكفر والطغيان. يا رب يا ذا المن جد بهداية تهدي القلوب بحجة وبيان. وحلو بشارين يا قفك عبادة كد ذالي حلي يضع أضقتها أما أي علستها علي النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة ضدك قدعر كاللغينية صلاة الصبح أما عشاها والصعدة عبادة أقورين يا ما أصفرية ضدك النوع سيفتين لما يسترن مالة قيامة هلو بشاريه وحلو بشارين يا ضدك وحوية متميزين تأه هل أبورك ددالية وحوية خيرك كشقينية سيجارة بلوغ بشارينية. نبي عليه الصلاة والسلام صحابتي سوتشيا هبين كميدا هبين نذا كميدا طبعا نوحا وكوري سقول الله اللي أو بشارينية وهذا ما أنت وحل فري الباب بدا السبدا كميدا بالله فري إلهي وحو إذن كفانا يا أدوم مديس وحوليه هي الضومضة إذا آذى وحي دميان عباده هذا مخرب بينه كبحنا وحين السجيان عبادك لي سجيان وعشيه بي سجيان وبشاره قف كستو وناك سمينيا أو وناك أمركو كدم ماذا وناك لبعض سجيان أيا وحوي اللوج بشارينيا وحلو بشارينيا قف كستو نعمه أي وصو عصبوناته ويل يا قبضا ودا شوبت با إلهي سي رزقي با إلهي واسعي قريقي قبيضة كاهبا ودا ما يسترمي قفك النعمة أصوع عصبونا تنوال له بشارينيا وبشروه بغلام حليم يبشرك بيحيى وحوية أنبيدي بلوغ بشارينيا أبد إلهي نسيي ولالك هدو الله النعمة يناد بشاريسو وامد وحوية آدي لوغو باهن يحي وحكمده dadka madcuuwiinta loo yeeray in loo bishaareeyo ninka daaciga ah sidaynu ka soo arkayna xadiisi nabiga kaleey salaatu wasalaam inay aad u adeegsadaan bishaarada waxa weeye hadii aad toobad keento ilaahay waa ka aqbalaya hadii aad Allah u soo noqoto ilaahay waa ku soo dhaweynaya ilaahay naxariistiisa waxay ka horeysaa cadhadiis dadka niyada in loo dhiso loo bishaareeyo albaabada wanaagsan ee naxariista loo furo aan laga caydin waa mid waxa weeye loo baahan yahay waatii aynu soo marnay ninkii waxa weeye ninka ku adkeeyay yiri lagu dambi dhaafi maayo inkii dambiga sameeyayna loo dambi dhaafay kii kalena waxa weeye naar uu ku mutaystay waayo waxa weeye naxariista alla cidina dadka ugu maquskuynayso
bishaarada dadka loo bishaaraynaya waa muhim ninka daaciga ah waa inuu dadka u bishaareeyaa waquluu linnaasi xusna hadal wanaagsan waa inuu kula hadlaa oo dadka aanu ku adkayn goodigana aanu ku badin cadhada alle iyo hanjabaadana waxa weeye xilliyada loo baahan yahay uu isticmaalo laakiin dadka loo badiyo baabka wanaagsan loo badiyo ninku xaaskiis inuu bishaarada u badiyo macallinku ardaydiisa u badiyo ninka daaciga ahi bulshadiisa u badiyo ninka maamulka iyo mas-uuliyad haya cidda uu mas-uulka ka yahay uu u badiyo bishaarada iyo hadalka wanaagsan iyo filashada wanaagsan inuu u badiyo waa mid waxa weeye aad iyo aad loogu baahan yahay cagsigana la iska ilaaliyo waxaa loo bishaaraynayaa dadka mustadcafiinta ee taagta daran ayaa loo bishaaraynayaa sida waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisu ay ahayd saxaabadu iyagoo gaajoonaya oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka mid yahay oo dhagaxaan caloosha ay ku xidheen gaajo awgeed 10 kun oo ciidanina ay isweer ka hayso oo aanay awoodin inay u banbaxaan ciidanka gaalada ay xoogga u leeyahay oo ay dhufays ka qodanayaan gaajatii ugu dambaysayna ay hayso ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dhagax baa ku soo baxaya dabadeedna nabigu wuxuu odhanayay ii dhiiba mandaraqa hala ii dhiibo nabigu waa ku dhufanaya calayhi salaatu wasalaam markuu ku dhufto ayuu nabigu wuxuu odhanayay waxaa ii iftiimay oo la i tusay qaysar waxa weeye kaydadkiisii oo aad furan doontaan oo ninka qaysar la yidhaahdo xilligaa dee maraykanku ka dhigna awooddiis waxa weeye khasnadahoodii baa madiine la keeni doonaa oo jidka alla loo bixin doonaa mar labaad buu ku dhuftay nabigu wuxuu uhi waxaa ii iftiimaya oo la i tusay kisra kaydadkiisii baa la i tusay oo halka laydinku keeni doonaa xaalad adag oo dadku ay ku sugan yihiin in dadka loo bishaareeyo niyadda loo dhiso waa mid loo baahan yahay nabigu wuxuu yidhi qofku hadduu yidhaahdo dadkii waa halaagsameen dadkii waa baaba'een dadkii waa socdeen isagaa kow ka ah idaa qaala arajulu halaka annaas fahuwa ahlakuhum waxa weeye ninku hadduu yidhaahdo dadku waa halaagsameen isagaa kow ka ah waa inaan hadallada noocaasa la badin oo haddii xitaa la sheegayo xaaladdu halkay marayso in lagu ladho khayrna inuu jiro oo dadka aan loo qusgoyn waxaan ku soo gabagabaynayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa markaynu eegno wuxuu aada uga digay waxa weeye dadka in la didiyo ama in la caydhiyo waataynu xadiidkii soo maraynay waxaa idinka mida dad waxa weeye dadka caydhinaya ayaa idinka mida waataynu soo maraynay nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamihiisa inay ka mid tahay inuu dadka u dabciyo oo ilaahay uu ku sheegay haddii dadka aad ku adkayn lahayd dadku waa kaa kala tegi lahaayeen walow kunta fadan haliida alqalb lanfaduu min xawlik dadka in la didiyo qaabkeedu waa qaabo badan bay leedahay waxaa ka mida dadka cusaada ah ama dembiilayaasha ah in la lacnado in la dagaalo in la habaaro in la aflagaadeeyo iyo waxyaabaha la midka ah waa midaan habboonayn nebiga waxaa loo keenay nin waxa weeye khamriga aada u cabba oo khamriga badsadaa loo keenay saxaabadii waxay yidhaahdeen lacanahu allah maa akthara maa yu'taa bihi ilaahay ha lacnado badanaa inta nebiga loo keenaya isagoo khamri cabbay nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa tuciinu shayطaana calaa akhiikum waar walaalkiin shaydaanka ha ugu kaalmaynina hadalka noocaasa ha ku odhanina cumar bnu lkhadaab baa la keenay ninkii cabdullaahi la odhanayay oo isaguna khamriga aada u cabbayey dabadeedna waxa uu yihi ilaahay naxariistiisa ha ka fogey badanaa inta nebiga loo keenaya calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu yihi ha odhanina sidaa ha odhanina waayo khamrigaba ha cabbo waxaan ku ogahay ilaahay iyo rasuulkiisa inuu jecel yahay dembigiisu ha bato ilaahay iyo rasuulkiisa inuu jecel yahay baan ogahay ee waxa weeye ha ku fogaanina
dad badan oo laga yaabo inaad ku fogaanayso waxa laga yaabaa inuu waxa weeye xagga qalbiga uu kaaga fiican yahay ayaa laga yaabaa marka qofku hadduu dambi samaynayo in waxa weeye dhinaca wanaagsanna laga eego oo loo naxariisto waa loo baahan yahay waxa de kaba sii daranba haddii lagu mashquulo dadkii wanaagsanaa oo waxa weeye dadka ducaadda iyo khayrka wada waxa weeye dhaliilahooda laga shaqaynayo ama mid daacisha waxa weeye daaci sheeganaya waxa weeye ha ku mashquulo ama mid waxa weeye dacwadda iyo khayrka la wado intay cidhiidhi ku keentay ama mashaariicdiis iyo wixii uu ka shaqaysanayay xaaraanta ahaa uu waxa weeye cidhiidhi inta uu dareemay uu la coloobay oo dadkii khayrka waday uu aflagaadaynayo oo waxa weeye uu maagayo waxa weeye ta noocaasi waa mid iyo aad cawaaqib xuma u keenaysa hadduu qofku doonayo dadka khayrka wada inuu ka firdhiyo oo uu ka caydhiyo si aan looga faa'iidaysan ta noocaasi waa aafad aad u weyn dadka qaar waa sida duqsigoo kale qofkii waxaa laga yaabaa hadhiya habeen inuu khayr ka shaqaynayo duqsigu waxa weeye jidhkaaga haddii meel ay malaxi ka da-ayso inta kale wanaagsan ee nadiifta isku taagi maayo wuxuu isku taagayaa meesha malaxda leh ee boogta abuu isku taagayaa dad baa noocaasa ibnulqayim raximahu llahu tacaala wuxuu yidhaahdaa qofku haddii khayrkiisu bato khayrkiisa waxaa loo daayaa xumaantiis alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar qaab iyo aadaab buu leeyahay qofka khaladkiisa in la sheegaa usluub buu leeyahay laakiin ta aan ka digayaa waa inuu qofku caado ka dhigto qofkii wanaag sheegayay inuu waxa weeye mar walba dhinaca xun ka istaago oo dadka khayrka laga hor istaago nin shiikha baa imanaya meel buu doonayaa dadka khayr inuu u sheego wuxuu ka hadlayaa waa salaada tukada waar zinada iska ilaaliya wax ummadduba ay isku waafaqsan tahay buu ka hadlayaa mid baa dibadda u taaganoo wuxuu leeyahay ninkani waa kooxdii heblo la odhanayay waa koox khatara weeye ha la yska ilaaliyo waxba yaa laga qaadan mikrofon buu la daba taagay waa tanfiirka iyo didinta dadka khayrka laga didinayo maanta xaaladaynu marayno waxay keensanaysaa qof kastoo wanaag wada in wanaaggiisa lagu soo dhoweeyo markuu xagga khaladka u dhaqaaqana in laga digo duruuftaynu ku jirno ayaa keensanaysa waxaad arkaysaa dad dhalinyaro ah oo waxa weeye cilmi badan aan lahayn oo dad waxa weeye diinta iyo cilmiga iyo khayrka 70 sano iyo 80 sano ku gaadhay waxa weeye la daba taagan ama ardaydu u dhigayo ayuu mar walba halhays ku soo qaadanaya uu leeyahay dadka aan waxba laga dhageysanayn hebel baa kamida aan waxba laga qaadanayn khayr aan laga qaadanayn waxa laga yaabaa dad kale oo shar wada la yaalana oo laga yaabo dhinacyada inay ka taagan yihiin inuu ka gaabsanayo ilaahay wuxuu tusay khaladka ninka khayrka badan ee wanaaga badan hadduu khalad leeyahay cidina kama madhna intiisa yarun baa la tusay shar badan oo soconayana waxa laga yaabaa inuu indhaha ka laabanayo waxa la mid iyaduna ninka macallinka quraanka dhigaya ama macallimiinta kala duwan ardaygu markuu isbuuc dhan wax ka baxayo ee casharka soo qaybayo ayaa maalin hadduu garan waayo baa laga yaabaa inuu si xun u ciqaabo oo waxa weeye dhibaateeyo oo waxa weeye aanu eegin dadaalkii badnaa ee ardaygu uu dadaalayay iyadoo ay suuragal tahay saaqidaadda ama casharka aanu ardaygu soo qaybin asbaabi inay ku keentay oo macallinku aanu ogeyn waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mida hooyaa ii timi waxay tiri shirkaddii laydhka ayaa ciyaalkii ka goostay waxa weeye laydhkii waxay wax ku qaybaanna ma haystaan ma ogid ardaygan aad ku ciqaabayso waxa weeye casharkii muu soo qaybin xalay guriga in laydhkii laga goostay waxa weeye ma ogid xaalad nafsiya inay ku timi waxa weeye ma ogid in waxa weeye ardayda quraanka la jeclaysiiyo macallinku ardayda cilmiga inuu jeclaysiiyo waxbarashada inuu jeclaysiiyo ma aha inuu ka didiyo
dad badan oo saaqidaya marka la dabagalo waxa la ogaanayaa waxa weeye macallinkii wax u dhigaya quraanka u bilaabay inuu diinka waxa weeye necbaysiiyey sida uu dhangadaynayo iyo sida uu ugu dilayo waalidka lamida khayrka markaad ku dilaysa ubadkaaga waxa weeye aad u digtoonow waxa laga yaabaa inuu waxa weeye wanaag ku muujisanayo waxa weeye xumaanna waxa weeye uu qarsanayo inta aad la joogtana wanaag uu ku tusayo markaad ka maqan tahayna wuxuu doona uu samaynayo oo aad soo saarta qof munaafiqa waxa uu qarsanayo waxa uu muujisanayo ay kala duwan tahay waxyaabahaas oo dhan waxa dawo ka ah mar walba inaad xoojiso xagga wanaagsan wixii wanaagsan inaad qaab wanaagsan waxa weeye aad ugu abuurto walaalayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa duruuftan aynu ku jirno waa duruuf keensanaysa maanta in la isu naxariisto ilqabow in la isu eego kii wanaagsana kii hooseeyey il naxariiseed inuu ku eego oo waxa weeye talo iyo tusaale la isa siiyo la isu dulqaato waxa weeye xagga wanaagga la iska eego cuqdada iyo nacaybka iyo waxa weeye shay walba in lagu macneeyo xagga xun ta noocaas laga fogaado mujtamac isu naxariisanaya isu dulqaadanaya hadal wanaagsan ku wada hadlaya isu bushaaraynaya iyadii diilo iyo waxa weeye fa'li wanaagsan iyo bishaaro wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan iyo niyad la isu dhisayo mujtamac ku taagan mujtamaca noocaas baa meel gaaraya ta noocaas insha Allah ta'ala inay astaan iyo caado inoo noqoto qofkii alla subhanahu wa ta'ala u abuurayna inuu waxa weeye si laban laabo kii waxa weeye alla uu u sameeyay xagga xunna naftiisa inuu layliyo waayo sharcigu markuu inoogu yeedhayo waxa wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsan waa waxaynu awoodayna weeye oran mayno ilaahay baa igu dabeeceeyay oo sidaa iga dhigay ee waxa laga doonayaa naftaada inaad ku laylido oo aad ku tababartaa laga doonayaa allahna subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaynaa dadka bishaareeya ee hadalka wanaagsan ku hadla ee dadka khayrka ugu yeedha ee aan didin Allah subhanahu wa ta'ala inuu inaga dhigo wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam جزاه الله خيرا أدب ما سنيه فضيلة الدكتور الشيخ حسن الشيخ علي ورسمه وقتك كوبا وحان أقليا إن سؤالها الشيخ أن أددجيه صدح يا سكر عندنا سؤال كوبات سائل كنوحة وليه هاي شيخ ضمر أيام وحقوديها هرتو دنوان استاغا أنيقو بلا ستارة دينتو محيكا قبتا وسؤال كوبات سؤال اللبات ninbaa xaaskiisa waxa uu furay saddexdii dalaaqoodba saddexdaasiba ma wada dhacayaan isu wada raacay saddexdii ta saddexaad haween ayaan waxaan u dhigaa buuri ducooyin waxaan ku idhaahdaa iga daba akhriya diintu maxay ka qabtaa taana dumarku markay iga daba akhrinayaan su-aasha afraad ee saa'ilkaasi uu raaciyey qofku hadduu dhinto qur'aan ma loo akhrinayaa الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سيكو كوبان ووقت ضمبه أيانو إن شاء الله تعالى وجوابنا سؤال شكوات نينكو إنو الضمر وقودك بلا ستارات وحوية هدي wax fitna aanay ka dhalanayn oo fitna aanay ku sugnayn dantuna ay keento waxa weeye wax dhibi kuma sugna laakiin asalku waxa uu yahay in la iska xijaabo oo waxa weeye xijaab la isaga dhaxaysiiyo sidaas waxa weeye asalku waa sidaas ragga iyo dumarka in la kala sooco oo waxa weeye la kala asturo ayaa waxa weeye asala waayo dumarkii waxa loogu yeedhay indhaha inay laabtaan waqul lilmu'minaati yaghdudna min absaarihin raggiina waxa loogu yeedhay indhaha inay laabtaan qul lilmu'miniina yaghudduu min absaarihim laakiin haddii dantu iyo duruuftu ay keento insha allahu tacaala wax dhibi kuma sugna laakiin inta laga warwareegi karo waa in laga warwareega wey amaa haddii fitna ay ku sugan tahay oo de adoo u dhigaya aada leedahay tani qurux badana tani indha macaana tani qosol wanaagsana haddii xaalkaagu uu yahay
oo dee afkana aad wax ka leedahay qalbigaaguna maqan yahay xaaladda noocaas hadda iyadu maba bannaana oo xaaraan bay noqonaysa masalada labaad waa talaaqu halaath ninku hadduu saddexdii dalqadoodba israaciyo meel isagoo wada jooga ama wuxuu yihi طallaqtuki ثalaثan saddexdaba waan ku furay ama wuxuu yihi anti طaaliqun ثalaثan wa طaaliqun ثalaثan wa ثalaثan hal meel ayuu saddexdiiba israaciyey ma wada dhacaysaa mise wada dhici mayso oo waxa weeye mid keliya ayaa dhacaysa afarta madhabood waa la garanaya afarta madhabood oo shaaficiyadeennu ay ka mid yihiin xanafiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada iyo culimada xitaa hadda jooga badankooda waxay leeyihiin afartuba waa dhacaysa saddexduba waa dhacaysaa bay yidhaahdeen afarta madhabood saddexduba waa dhacaysaa adilo badanna waa daliishanayaan waana qowl aada u xoog badan wey qowl aada u xoog badan wey saddexdaba in la israaciyaana horta waa maxay waa dembi iyo xaaraan wey saddexdaba inaad israacisaa waa bidco waa dembi waa xaaraan weeye sharciga alle kuma bannaana sharciga alle waa inaad gabadha furto dabeedna cidda ay tirsato kadib aad soo ceshato kadib aad furto oo sidaa loo kala dambaysiiyo in la israaciyo lama ogolaa culimada islaamku laga soo bilaabo saxaabadii ilaa maanta aynu joogno boqolkiiba 99 sidaasay ku tageen taa macnaheedu waa maxay haddii la yidhaahdo saddexduba waa dhacayaan gabadha guurkeedu kuma bannaana ilaa nin kale uu soo guursado walibana aan lagu heshiin lacana allahu almuxallila walmuxallila lah ka xalaalaynaya ka loo xalaalaynaya labadaba lacnad baa korkooda ku soo degaysa ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin inuu iskii u guursado kadibna uu soo furay kuugu soo noqonaysaa haddii aad iskaga noqotana macnaheedu waa maxay gabadhaa zina iyo dhilaysi baad ku qabtaa ayaa ka dhalanaysa culimada badani sidaa ay leeyihiin qowlka labaad oo culimo fara ku tirisa ay ku tageen waxay leeyihiin waxa weeye hal xabba ayaa la xisaabinaya midh keliya ayaa waxa weeye la xisaabinaya marka anigu masalada noocaasa ama qowlka noocaasa ma fatwoodo laakiin xaalad gaara odaya islaan 10 ciyaal ay isu dhalay oo meel aan kala tegay ubad badan isu leh isdoonaya haddii ay waxa weeye ka baxsato sida culimo badan oo caalamku ay sameeyaan iyagoo ku qanacsan saddexduba inay dhacayaan xaaladda noocaas iyadoo duruufta la tixgelinayo in xabad loo xisaabiyo la yidhaahdo hadday laba hore ay kugu maqnaayeenna waa tii saddexaad oo way dhammaad haddii aadan hore u furinna xabad weeye labaad kuu hadhaysa in waxa weeye sidaa la yidhaahdo laakiin laba qof oo khaati kala taagnaayoo quus kala taagnaa oo laga yaabo maalin dhowna inay isfuri doonaan in waxa weeye culimmada islaamka loo khilaafo iyo adilada badan ee tilmaamaysa anigu ma qabo waa in la sii kala socodsiiyo wey haddii xaalku sidaa yahay laba qof oo dee khaati awalba kala taagnaa oo dhibkoodu soo noqnoqonaya haddii ay yihiin ama waxa weeye isku fududa iyo wixii la mida waayo qadiyadu qadiyad sahlan maaha waxaan waxaasoo dhan u tilmaamayaa inaan la sahashan cadhaa iga keentay iyo waxaasi kaa kala saari mayso waayo nin faraxsan oo qoslaya wax ma furo sidaan filayo ama ay xaqiiqadu tahay adigoo iska qoslaya oo faraxsan waxba furi maysid cadho unbay kaaga soo baxaysaa waxa weeye markaa noocaas hadday saa tahay waa in aad iyo aad qadiyadda looga digtoonaado naftaada iyo diintaadana iyo gurigaaga iyo ehelkaagana biima inaad gelisa ma aha waa in arrintaa aad iyo aad looga waantoobaa oo la iska wacyigeliyaa ma aha hadda in la iskala boodo shiikhu wuxuu yihi saddexda midh baa laga soo qaadaya oo adoo midh u jeeda inaad saddex maalin walba ku hadasho oo mar walba aad saddex ku celcelinayso waa dembi weyn weeye sida aynu tilmaannay waxaana suuragala sida ay culimmadu u badan yihiin guurka aad ku noqonaysaa inaanu xalaal ku ahayn oo aanu ku bannaanayn masale sahlan ma ah ta saddexaad dumarkii wax loo dhigayey ama rag haddii loo dhigayana waa la mid ducada marka loo dhigaya in loo laqimo oo ay kaa daba qaadaan wax dhibi kuma jiro ta aan wanaagsanayne laga digayaa
waa in caado laga dhigto in laysu laqimo saxaabadiina waa ka digeen oo abu mascuud baa wuxuu ku soo baxay nin la hallilu 100 waar 100 jeer laa ilaaha illa allah la yiraahdo oo ay odhanayaan laa ilaaha illa allah subxaan allah dhaha dabadeedna wuxuu ula noqday cabdillaahi ibni mascuud waa abi muusa al-ashcari wuxuu yidhi wallaahi wanaag baan arkay laakiin waa wanaag aan qoonsaday weeye ilaahay in la xusaa waa wanaag laakiin qaabka loo samaynayo u diiday dabadeedna wuxuu u yimi cabdullaahi ibni mascuud baa u yimi waana kala didiyey oo wuxuu diiday ducadii in laysu laqimo iyo waxa weeye adkaartii in laysu laqimo tan noocaasi ma habboona laakiin macallinku dadka inuu u laqimo rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana si ay u qaybaan khaasatan dadka waayiilka ah waxna aan qorin waxna aan akhriyin ee ku qaybaya laqimaada loo laqimayo waxa weeye wax dhibi kuma sugna su-aasha afraad qof mayita qur-aan ma loo akhriyaa waa masale culimmadu ay isku hayaan qaar waxay leeyihiin wuxuu hadduu cibaado yahay way gaadhaysaa noocay doontaa ha noqoto ama mid jidhka laga samaynaya ha noqoto ama mid waxa weeye lacaga oo kharash lagu bixinaya ha noqoto ama labadooda la isu geeya ha noqoto oo uu ka mid yahay qur-aan in loo akhriyaa waa gaadhaysaa bay yidhaahdeen waxaana ka mid a shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim raximahu llahu tacaala iyo culimo badan culimo kale waxay yidhaahdeen daliil bay u baahan tahay camalka gaarka ah inuu gaadho oo hadda layna weydiiyey qur-aan in loo akhriyo oo waxay yidhaahdeen waxaa lagu kaaftoomayaa inta adiladu inoo sheegayso in loo duceeyo ducada ajarkeedu waa gaadhayaa iyo aqbalaadeedu in waxa weeye laga soomo in laga xajiyo in laga cumraysto in sadaqooyin iyo awqaaf loo sadaqadaysto waa waxyaabaha la sheegay inuu gaadhayo laakiin wixii kale waa sida intaad meel fadhiisato jus qur-aana hooyaday baan u niyooday aabbahay baan u hadiyadeeyey wax daliila looma hayo sidaa awgeed waa bidca bay yidhaahdeen waana qowl xoog badan weeye anigu waan dhexdhexaadsadaa oo waxaan ku taliyaa waxa weeye kolleyba tacab haddaad gelayso waxaad gelisaa tacabka wax lahuba geli haddaad soddonka qur-aanka aad dhammayso aad xiiqdo oo aad tidhaahdo hooyaday baan u hadiyaday hooyadaana ay gaadhi weydo adigana ay ku dhaafto ila naftaada umaad niyoon hooyana ay gaadhi weydo sharciga alla ay khilaafto oo hawada dhexa ay ka baxdo waa tacab khasaar weeye waxaad noqonaysaa foosta gunta ka dalooshan in dhaaminaya marka inaadan biimo gelin tacabkaaga ee wixii la hubo inaad u hadiyadayso sadaqa u bixi qur-aanka adigu akhriso laakiin sadaqa u bixi qur-aanka adigu akhriso laakiin markaad dhammayso camal wanaagsan haddaad dhammayso ducada waa la ajiibaa u ducee labada waalid u ducee waxaa mushkilada siday saxaabadu sheegeen wixii la ina farayna inaynu ka tagno waxaan la ina farinna inaynu ku dadaalno waxa mar walba la isweydiinaya midha waa markii boqolaad meelo badan baa layga weydiiyey hooyo qur-aan ma u akhriyaa hooyo dhimatay laakiin ku weydiin maayo hooyo wax ma u sadaqadaya jeebabkuna waa u buuxaan waa laga yaabaa inaan waxba u sadaqaday yaa kun kallaanta ah kun kullaani ma inagu culus tahay maalin walba kullaana haddaad u sadaqadaysato waa wax cid waliba ay awoodayso maalinta qiyaamo ilaahay buuru ku gaadhsiinaya ku dadaal wixii lagu jiidaya adiladu ay tilmaamaysa culimmaduna waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye laga tago wixii sharcigu sheegay booska waxa soo gala wax bidca ah oo aan jirin baa soo gelaya marka mar walba waxaan ku talinayaa in lagu dadaalo inta sharcigu sheegay baan ku talinaya wallahu aclam saa'ilkan koowaad waxa uu leeyahay sheekh waan seexday markaa waan riyooday buu yidhi biyihii taranka ayaa iga yimi salaada subax ma ku tukan karaa biyaha marada biyahaasi ay igaga yimaadeen su-aasha labaad waxa uu leeyahay sheekh ma la shaqaysan karaa jin muslim ah ta saddexaad waxaa la isticmaalaa hadda oo cilaaj iyo dawooyin laga dhigtaa waxyaalo la isku dardaray oo xabaasuud iyo waxyaalaha la iskugu daray iyadana shareecadu maxay ka qabtaa su-aasha afraadna waxa weeye waxaa soo baxay xinne lagu daray madoobayso oo garhka iyo madaxa la marsado taana iyadana diintu maxay ka qabtaa waxa weeye manida waxa loo yaqaano ninka isku junuuna ixtilaamay
maradiisu ay mani leedahay manidu waa daahir wey manidu nijaas ma aha sidaa awgeed maradaadii oo manidii ka qoyan tahay ama ay ka muuqato inaad tukataa waa ku bannaan tahay salaaduna waa ansaxaysaa laakiin waxa fiican in la iska meedho way fiican tahay sida nabiga calayhi salaatu wasalaam markay manidu maradiisa gaadho bukhaari iyo muslim ku timi caaisha ay tidhi waan ka meydhay meeshii aan ka meydhay oo qoyan ayuu nabigu salaada u baxaya calayhi salaatu wasalaam markaa nadaafad ahaan bay u fiican tahay in waxa weeye nadaafadda lagu dadaalaana waa min aliimaan nadaafad ahaan bay u fiican tahay laakiin salaad ahaan mara mani leh ama ha qoyanaato ama ha qalalnaato way ansaxaysaa salaadu su-aasha labaad jinni muslima ma lala macaamilaya waa maya lalama macaamilo waayo waa laba khalqi oo alla uu kala soocay weeye sidaad ku ogaanaysaa waxa uu yahay waxa weeye wax dabiiciya ma aha jinka muslimkaa in lala macaamilo waxbuu ii sheegay waxbuu ii soo qabtay waa falalownimo casriya wey waa falalownimo kahaano casriya wey oo aada loo sheegto culimmaduna waa ka hadleen waddo saxa ma aha in la yidhaahdo jin muslima ila shaqeeya oo wax ii sheegay waa waddo khaldan weeye qaabka jinka loola tacaamulo waa la yaqaanaa axkaam baa laynoogu kala sheegay waddo xidhiidhoo toosa oo inaga iyo jin inaga dhexeeyo dabiiciyo caadiyi ma jirto insiga waa lala macaamilaa laakiin jin maya su-aasha saddexaad waxyaabaha la ysku daray cilaajka ah horta dee waxa la ysku cilaajinayo waxyaabaha qaar nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam malabka in la ysku daweeyo nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxbuu ku daweey xabaad suud in la ysku daweeyo biyaha zamzamka in la ysku daweeyo asina wasannood geedo badan baa laynoo tilmaamay in la ysku daweeyo kuwa noocaasi waa cilaaj nabawiya qaabkii nabigu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam in la isugu daweeyo waa mid laynoo jideeyey weeye waxaa jira waxyaabo kaloo la tijaabiyey hadda zanjabiishoo kale waxaa dee gaal iyo muslimba isku waafaqa inay dawo tahay nin baa ku gebiyo carbeedoo wuxuu idhi wazanjabiilu saydaliyatun fiiha kullu dawaa'i sanjabiishu waa farmasi dawooyinkao dhan waxa weeya lagu koobay waxyaabo badan bay daweysaa taa dad baa tijaabiyey cilmi baadhis baa lagu ogaaday iyada dee odhan mayno wixii nabigu sheegay bay ka mid tahay waxyaabaha la isku darayaana kuwaasay la mid tahay marka haddaad zanjabiil iyo isu geyso malab ama aad isu geyso laba nabigu sheegay waa xabaad suud iyo malab aad isu geyso wax dhibi kuma sugna haddaan waxa weeye dhibaato lagu sheegin way dhacdaa laba shay oo marka la isku daro shay saddexaad oo dhibaato keenaya uu ka dhasho waa la sheegay oo waxa weeye dee qolada kimistariga sheega laba shay ama laba maado markay isla fangalaan baa laga yaabaa maado saddexaad inay ka dhalato maadada saddexaad waa laga yaabaa dhibaato inay kugu keenayso marka dad aqoon u leh in lagala tashado ayaa fiican sax ma aha wixii nabigu sheegayba intaad hal madiimad isugu geyso waxaba hal mar inaad laqdo waa waxaanu nabigu sheegin wey waxa weeye in lagu degdega ma ah waa laga yaabaa dhibaato inay kugu keento ta kale waxaa muhiima qaabka loo isticmaalayo lafteeda in la baadho qaabka loo isticmaalayo waayo xabaad suuda lafteeda mar saliid bay ku fiicanta mar buday ku fiican tahay iyadoo daqiiqa mar waxay ku fiican tahay inuu sharaab lagu darsado hadba qaabkay ku wanaagsan tahay lafteeda in la ogaado ayaa fiican qolyahan dee ka shaqaysanayaana hadda waa ku talax tagaan waa cilmi la barta geedaha in la ysku daweeyo dhibaatooyinka ay leedahay qiyaasta ay leedahay faa'iidada ay leedahay qaabka loo isticmaalayo waa cilmi la barta weeye maaha wax la iska bowsada maaha qur-aanka iyo xadiiskuna kuu sheegi maayaan xabaad suudu inay dawo tahay waa lagu sheegay laakiin qaabkay dawo u noqonayso waa wax la barta weeye marka ta noocaasana ma aha waxa weeye in lagu fogaado ma aha waxaan kaloo tilmaamayaa dadka waxa weeye ku talax tegaya baabkaas ee ku danaysanaya ee ka shaqaysanaya ee intuu dadka waxa weeye koob yaroo biyaa intuu soo qaado waxa weeye qul huwallaahu axad ugu tufaya
ee lacag badan ka siinaya ee shirkaamada halkan soo dhiganaya ama booyadda la leeyahay quraanka lagu tuf ya booyad dhan intuu dul istaago qul wallahu ahad tufo ya tabaadna inta soo foosta ag yaala hal marbu waxa weeye ku tufaya dadkana uu dhaaminaya lacag badanna waa ka siinaya ama wuxuu oranayaa malab lagu tufay xabaasud lagu tufay saliid saytuun lagu tufay ya lacag qaaliyana dadka waa laga siinaya waxa noocaasi wax sax ma ah waana dadka in loo turo weey tacab haduu ka galay ama shaygan aad lacag ka soo bixisay waxa weeye ka iibi laakiin tufidaada yar shaygii saliidii yareeda la siinaya halka dollar inaad tiri faataxadan ku tufay waa laga yaabaa ka aad ugu tufayso faataxadiisuba inay adiga kaaga inay ka baraka badan tahay waayo saamaynta uu quraanku wax saamaynayo waa qofka diinkiis iyo qalbigiis iyo sida uu ugu qanacsan yahay ka loogu tufaya laga yaabaa inuu ka khayr badan yahay kan waxa weeye wax ku tufaya marka tan noocaasana laga waantooba insha Allah ta'ala dadkuna waxyaabaha noocaas inay ku degdegaan ha iska ilaaliyaan wallahu ta'ala a'lam su'aasha ugu dambaysan ilaa way xinna balaag waxa loo yaqaano horta madoobaysada waxa la yiraahdo waxa weeye ma banaana sida raajixa xooga badan walaw lafteeda la isku hayo oo xadiidka tilmaamaya muslim buu ku yimi culimada qaar waxay yiraahdeen waa dhaif oo ma sugna oo ma ansixin bay yiraahdeen in madoobaysa la isticmaala way banaantahay culimada qaar waxay yiraahdeen waxa loo diidayaa ka dadka khaldaya odaygii waayeelka ee hablaha ku khaldayay ee timaha cadda waxa weeye ama islaantii ciraysatay ee ragga ku khaldaysay baa loo diidayaa laakiin kii awalba iska timaha madooba inuu isagu iska sii madoobaysta waa iska caadi bay yiraahdeen culimada qaar ibn shihaabiya baa laga sheegay sidaas ay leeyihiin marka waa mas'ala la isku hayo marka waxaan leenahay hadaynu soo dhaweynay waxa weeye qofku inuu madoobaysa isticmaalo waa mid aan habboonayn culimada qaar sida shaafiiciyada kalena waxay leeyihiin waa karaahiyo waa wax laga fiican yahay oo aan habboonayn laakiin ma gaarsiisna xaraan ma gaarsiisna laakiin in laga dheeraada fiican laakiin haduu yahay waxa ka tamka loo yaqaano qarkii cadda abi bakar yaba isticmaalayay khadabahu bil hinaa'i wal katam waa geed katam la yiraahdo anigu kulli af Soomaali ku garan maayo oo waxa weeye macruuf oo la yaqaano geedka noocaas marka la marsado garkii cadda wuxuu ka dhigayaa marka xaqiiq ahaan loo eego ee lagu soo dhawaado wuxuu ka dhigayaa bunni ama kafee buu ka dhigayaa bunniguna da waa aragteen waa madow xigeen madowgu xiga marka qofku markuu ka fog yahay wuxuu u malaynayaa madow buu u malaynayaa laakiin marka lagu soo dhawaada la dareemayaa inuu yahay midabka kafeega inuu yahay ka noocaasi waa bannaan yahay axaadiistuna waa tilmaamaysaa xadiidka Bukhari baa u daliila Bukhari inuu imaam Abi Bakar inuu waxa weeye isticmaalay laakiin hadii uu yahay madow isaga waxa weeye lama ogola wallahu ta'ala a'lam labada su'aalood ee ugu dambeeya ee sheekha weydiinayna su'aasha koobaad lacagta Soomaaliland shilinka ah marka aad saad qof ugu dirayso khidmad ma ka qaadan kartaa su'aasha labaad waxa weeye sheekh waxa jira goobo cilaaj ah oo dadka la rusheeyo oo dumarka jirkooga amba xubnooga qaar kamid ah ninka rusheynaya amba dabiibaya uu gaarayo yadana shariicadu maxay ka qabtaa barakallahu fiikum maanta daana hore dagaalka ugu qaaday qolada cilaajka man sii wada haddaan su'aasha hore ku horeeyo su'aasha ku saabsan markaad lacag zaada xawilayso ee aad ku bedelayso lacag kale waxaan filayaa wuxuu doonayaa laan inuu la soo baxo wuxuu dirayaana waa laan soo sida ma ya saadkii buu laan ka dirayaa wuxuu doonayaa laana gacanta laga siiyo ya ama isagoo haystaba dee uu ku bedelanaya iyadoo lambara uu ku bedelanaya khidmad ma ku qaadanaya masaladu waxay ku dhisan tahay haddii la yiraahdo waa sarif haddii la yiraahdo oo sida de culimada qaar ay leeyihiin waa sarif laba lacag ayo la isku bedelay waayo sarifku waa maxay waa mubadalatu naqdin binaqdin
waa kaash in lagu bedelo ka mobilka kuugu jira lambarka ayna waa kaash kan qacanta lagu hayaana waa kaash laba kaash hadii la isku bedelayo maxaa loo baahan inay waxa weeye sinaadaan oo aan la kala badin labada qof ku doona ha noqdo midina waa inaanu dheeraad bixin waayo laba lacagayow oo isku mida oo isku magaca baa waxa weeye la kala iibsanaya waa hadii baabka sarifka loo qaado adeeg laguma qaato hadaad axsaan ninka ku yime ku 10 kan laanta mobilka igu shub waa inaad ugu shubtaa ama aad tiraahdaa maya xaq baad u leedahay laakiin inaadan la gelin heshiiska noocaas inaadan la gelin waayo sarif bay noqonaysaa waa sida culimo badan ay leeyihiin culimo kala dhinac kale ka eegan waxay yiraahdeen qadiyadu baabkii sarifka ma aha waa baabka xawilaad waa xawilaad oo ninkii markaad u timaado waxaad leedahay 10 kun ee laanta ama 100 kun ee laanta waxa weeye iga qabo waxaad iigu xawishaa mobilka iigu xawil mobilka waxa weeye iigu xawil xawilaada adeeg in lagu qaataa waa banaanta waa wax adeeg lagu qaadan karo marka hadaynu dhinaca ka eegnana ninkii waxba kuma sarifin 100 kun oo laana baad u dhiibtay waxaad leedahay 100 kun ee laanta iigu xawil mobilka iigu xawil oo iigu bedel marka dhinaca marka laga eegana culimada qaar waxay yiraahdeen masaladu xawilaad bay noqonaysaa hadii ay xawilaad tahayna waxa weeye way banaan tahay laakiin waxaan anigu u badinayaa inay xagga sarifka u dhowdahay ayay waxa weeye u badan tahay inay sarif tahay marka masalada noocaas ay la iska ilaaliyo oo aan la sahashan waayo hadii ay noqoto sarif ay noqoto de waxa galaysa ribaduna waa dambi aad u weyn waa dunubta ilaahay uu iclaamiyay inay tahay waxa weeye dagaal ilaahay inuu la galayo waa dunubta halista waa todobada dambiye nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam ejtanibu sab'a almubiqat todobada waxalaaga hala iska ilaaliyo ayay kamid tahay marka illa sahashada ma waa inaan khidmad lagu qaadan khidmadna lagu bixin insha Allah ta'ala su'aasha labaad dadka waxa weeye dadka daweynaya ee maalin walba qaab cusub keenaya dadka u cilaajinaya horta marka cilaaj laga hadlayo qofka waxa looga baahan yahay inuu naftiisa quraanka ku daweeyo oo quraanku waa daw inaad ilaahay u soo noqoto ilaahayna aad isku xidho adigu ilaahay aad barido waayo qofka dhibaataysan ducadiisu waa mustajaab amman yakshifu almudarra idha da'a wa yakshifu as-suu amman yujibu almudarra idha da'a wa yakshifu as-suu qofka dhibaataysan ilaahay dhibaatada waa ka kor qaada adigu ilaahay inaad barido oo aad ducaysato adigu inaad waxa weeye quraanka aad akhriyayso adoo dhibaataysan biyaha aad ku tufto tanoocaas loo baahay maanta de qof weyn oo muslima oo de faatixada aan aqooni ma jiro nabiguna wuxuu yiri maxaa ku ogeysiiyay faatixadu inay tahay daw ruqya inay tahay maxaa ku ogeysiiyay marka horta qodobkaasi waa muhiim inaan faatixada cidna laga martiin oo qofku naftiis dadka waxa weeye jannada u dheeraynaya ee xisaab la'aan ku galaya waa dadka aan dalban in wax lagu akhriyo ayagu isku akhrinaya ayuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam mawduuca mar walba waa in lagu dadaalo weeye maanta ka hadii aynu ku dadaalnana cilaajooyinku waa xidhmayaan cidina isrushayn mayso 2,000 inta meel la isugu keeno yaa qul wallahu ahad tabaadna saa loo rushayn maayo sida gawaadhida loo rusheeyo ama beeraha loo rusheeyo cidina isrushayn mayso laakiin dadkiiba isaga dhaga nugul hawlaha noocaas waxaad moodaa dadku inay khuraafaadka iska jecel yihiin hadba ninka cusub ayaa dumarkan u jeeda ay waxa weeye isugu imanayaan marka tan noocaas ay laga waantoobo oo ninku hadduu arkay xitaa islaantiyo ku ordaysa waxa weeye meelaha cilaajka inuu yiraahdo aniga laftaydu cilaaj u baahan furane inta waa ku filana oo dawadna faatixada uu ku akhriyo hadduu doono codka waa hoos ha u dhigo haba garan weyda waxa uu ku akhriyo meesha haba garan weyda laakiin faatixada uu ku akhriyo waayo de waxa socda wax la yaab la wey lacagtii ummadii waa laga dhamaynaya
waxa weeye diinta allana meel baa lagu tumanaya waxa kale sax ahay qadiyada hadda aan sheegayo marka quraanka dadka loogu akhrinayo ninkan quraanka akhrinaya canduftiis walibana candufta ma ee hawadiis markuu quraanka akhriyo faatixadii dhameeyo inuu naqaskiis waayo barakada ku sugan carabkii uu ku akhriyay iyo naqaskii la jaan qaaday quraanka alle iyo barakadiis ayaa la doonayaa biyihii la gaarsiiyo marka ninka 100 foosta intuu dhinac dhigo hal mar hawada tufka oranaya waxa weeye xagee wax ka gaadhays foostadii ama waxa weeye booyadihii waaweynaa qaar baa booyad ku shubay dabeedna uu qaadanaya ku rushaynay 3 kun ku rushaynay waxa weeye waxa ku sugan waa maxay quraankii la akhriyay walibana waxa laga yaabaa kuwaas in badan oo kamid inuu ay ku mashquulsan yihiin lacagtii dadka laga qaaday business inay ka noqotay ila waxa la doonayaa markuu quraankani wax saameynayo kan ku akhriyaya inuu ku qanacsan yahay inay dawo tahay qalbigiisu inuu soo jeedo oo soo xaadirinayo markuu indhaha ka xisaabinaya uu leeyahay maanta wallahi waa badan ka gaarsi in kala dibadda inoo taagan isagoo aan niyeysnayn ba quraanku in wax lagu daweynayo ayuu waxa weeye hawada tufuka oranay ka lagu daweynayo laftiisu waa inuu ku qanacsan in badan oo dadka ka mid sheekha ayay ku qanacsan yihiin quraanka kuma qanacsana waayo hadii la yiraahdo ninkana kugu akhriya maya sheekh hebel baan doonay marka quraankii waxa kala weyn wadaadkaas kala weyn wadaadkuna dawa ka durbaanka tuntay marka hawshaasina waa hawl ay fiican tahay laga hortago insha Allah ta'ala in halkeedana loo soo celiyo nabigu wuxuu yiri salaatu wassalaam markii la weydiiyay quraanka la isku tufayo qofka doonaya walaalkii inuu anfaco wax lacag lagu qaato ma dadkii horena lacag kuma qaadanay adeegyada bilaashka loo qabanayay bay kamid ahay laakiin haday cidi u go'do oo shaqooyinkii kale ay uga go'do waxa weeye wax ku filan inay qaataan laakiin wax walba maanta waxa laga yaabaa dhakhtarkii caadiga ah markaad u tagto $10 inaad kaga soo baxdo cilaajka hadaad u tagtana $50 inay ka dhigaan wax yar oo isku dardaray oranaya waa $30 ayuu waxa weeye oranaya qofkuna waa qof dhibaataysan oo baahan waxa la yiraahdaba waa dhigaya waa qof dhagan nugul weey marka Allah subhanahu wa ta'ala illa laga baqo waana qaba wasaaradii awqaafta joogta hawsha noocaas illa xakameeyo iyadoo culimadii lala kaashanayo illa xadeeyo oo maanta magaca culimada iyo diinta iyo quraan isku akhriska nin walba soo galatiyo iska soo galay intuu durbaan tunto ama media ka hadlo in waxa weeye dumarka iyo maatadu ay ku jabaan lacagtana uu ka furto waxa weeye tan noocaasa mas'uuliyad baa dadkeena inaga saaran hantidooda inaga saaran caafimaadkooda inaga saaran masaalixdooda iyo danahooda inaga saaran waa hawl loo baahan yahay insha Allah ta'ala walibana qofkii ilaahay ka baqaya ee si wanaagsan u galaya ee dadka u naxariisanaya waan kula talinaya insha Allah ta'ala ee naftiisa huba inuu ka shaqeysto waa hawl markii la arkay waxa ku soo gabagabaynaya laba nin oo ardaydeeda kamid oo dhalinyaro ah baa maalin iyagoo ila tashanaya waxay yiraahdeen sheekh malcaamadii waxba waa ka soo bixi waalidiintiina fiigi iyo quraanka waxba ku bixin maayaan xaasi ciyaalna waa leena waan ku busaaradun waxaan riwaaya maxaa taraaysan waxaan ku talagalay cilaaj inaanu furanno waxaan ku iri wax walba qabta laakiin cilaajka ma yaban ku illa cilaajka mooyaane wax kale waayo waxaan ogahay maandho kabo inay ka kululaanayaan oo niyadan wanaagsan ay leeyihiin dad xanuunsanayaan oo caawinayna inay meesha ka baxayso oo faataxadi ay noqonayso dahab ay noqonayso lagu soo xareeyo marka tan noocaasna kulli xakameyn bay u baahan tahay intaasan kaga baxaya insha Allah ta'ala qadiyada ku saabsan ninkii inuu gabadhii taabanayo ninka dhakhtarka caafimaadka ah ee gabadhii qalaya cilaajku hay dambeeyo ee waxa weeye gabadhii daweynaya loo baahday qaliinka ku sameynaya isaga damba keeto waa loo baahan yahay laakiin ninkan waxa weeye oranaya faataxa ku akhrinaya cunaha qabanaya ama caloosha ku dhagaya ama gugujinaya
ama laabta iyo waxa weeye naasaha ka feedhaya waxa weeye taasi waa ka badbadis weeye waxay ahayd hadduu ilaahay ka baqayo inuu xitaa waxa weeye odageeda ugu yeedho oo meeshuu u baahday isagu yidhaahdo qabo uu yidhaahdo ayay ahayd laakiin isagii inuu faraha la gelayo fasaad badanna waa ka dhacay dad badanna waa ku fitnoobeen oo waxa weeye fitna ka dhacday aan la soo koobayn qaar baa la ii sheegay marka gabadha lala socdo odhanaya xaaladeedu waa adag tahay ee dibadda ku suga gabadhu inta badan odageeda ma kaxaysata gabdhay kaxaysataa gabdhuhu ka odhanaya dibadda igu suga keligeed boqolka la gelay wuxuu wadaana wax kale ma hayo shahaadooyinna ma sito faataxa unbuu wadaa oo doonaya qolka hoosta inuu uga xidho waa fasaad weey uma bannaana baahina keeni mayso jidhkeeda inuu taabto wax baahiyoo keenayso anigu aan ogahay waxa weeye ma jirto sharcigu wuxuu sheegayaa inuu ku tufo halkaa ha kaga tufo haddii qabqabasho loo baahdo ha iska xejiyo dad dumara ama dad maxaarima ha iska xejiyo qolada caafimaadkaaba la qaato xitaa dumar markay u soo gelayaan gabadh neerasabay waxa weeye kansadaan oo xagga dumarka ay iska xejiyaan si aanay ula khalwoon aanay ula keliyoobin waa ninka alle subxaanahu wa tacaala ka baqaya kii qur-aanka wadayna waxaa laga yaabaa inuu iska dhex sameeyo way jiraan markaan sidaa u hadlayo dad ilaahay ka baqaya waxa weeye ku dadaalaya sida wanaagsan laakiin waa faraku tiris weey wax la tilmaami kara maaha in badan oo ka mida waxa weeye waxbaa ugu soo dhuumanaya hawsha noocaasa marka in laga digtoonaado insha allahu tacaala waa loo baahan yahay wallahu aclam jazaaka allahu khayran aad buu mahadsan yahay doctoorku in sha allah waa inoo habeen dambe iyo muxaadaradii labaad oo halkaa inooga sii socoto baaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان